waxaan u arkaa masaafuristaas wax qaldan labada shacab waa walaalo anaga hadda xamara joognaa walaalaheena waaya mar walbana waa soo dhaweynaa laakiin ayaga uqdada yaqaaniin Somalilander uqdada yaqaaniin laakiin anaga uqdad ma naqaan dareer xamarna anaga wadan ajaanibnaga ma aha Hargeysa waa wadankeeni Soomaaliya waaye laakiin ayaga uqdad haysa laakiin dib ma lahan waxba uma aragno mana ka argudsanayno waa aragna xildhibaanadii waa dooranay aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi dad badan baa xildhibaano ugu jiro ma sha Allah waa dad walaalanahay laakiin ayaga nafaq u qaya dibna uma aragno dadka barkacinta oo la sheegay Somaliland oo markaas barkacinta ay soo buriyeen Muqdisho imaadeen waxaan dhihi lahaa hadda iga saas garteen anaga kulli ma burinayno waxa markaas dadka oo Ilaahay abuurtay adoomiyashiisa anagana adoon Ilaahay abuurnay oo nahnaa in markaas la isku saacido xaasnimadan heer loo gaarin walaatinimada iyo waxa la isku saacido oo heer loo gaara maanta waxa waaye marxalo badan ayaa la soo maray dalka Muqdisho haddii la isku naxariisto Ilaahay waa uu naxariisanayaa haddii qabyaalada dii lagu shaqeynayo oo waxa la iska dhigaa daacad lagu shaqeynayo taasan dhibaato leedahay marka insha Allah Ilaahay isku dumo dadka markaas oo galgaceelka oo markaas jecel Ilaahay isku wada kulmiyo saasaan dhihi lahaa wax idin kuraas badan ma leh dawladda Soomaaliyana wax idin kuraas badan ma leh haday taa mid aqal sara haday taa mid xildhibaanada golaha shacabka wax idiga badan ma leh waxa aad sameeynaysan wax islaan u adkaysan kara maan wuxuu Ilaahay subhanahu qaadirka raali ka yaala maan wal cadaabta iska ilaalsha wal cadaabta waa lagu naartaga waxyaabaha soo kale Soomaali baa leh Soomaali hadaan dhamaan Somaliland waxaan leenahay war wadankaana joogtiin annaga waa nala joogtiin xamar Muqdisho joogtiin idama musaafirino marka waxaan leeyahay ninka Somaliland meesha u fadhiya oo nimanka ayagana Somaliland meesha shaay ka cabaan oo faantamada Muqdisho waxa yaalo xuduntooda taalo waxaan leeyahay shacabkiina annaga waa nala joogan marka waxaan leeyahay Somaliland war isku xishooda umada Ilaahay waa idin naciyay umada Ilaahayna ka xishooda waxaan leeyahay hooyooyinkaas iyo masaakiintaas koonfur waa loo wada dhashay koonfur waa ka wada simanahay Soomaaliyana Soomaali baa leh sida hadda muuqato wax fiican ma ahan hadii la yiraahdo mina Soomaali ahaan hadii la yiraahdo muslimnimada dhankiisa hadii la yiraahdo dhan walba oo loo eego hadii si loo dhigana waxay noqon kartaa arrin oo ku deysho mudan xaqiiqda dadka laakiin uma maleynay inay ku deysho ay mudan tahay anu waxay la tahay horta muslimnimada xageed hadii la eego ma ahan wax sal iraad kule المصبيح والصومالي ومسلم سماها ما أهنا قف مسلم إنه يرادو قف مسلم أسيقو عروتي فيه أهلدي تقرابي أسيقو إنه صوت ترحيله وشيء ممنوع مثل أنا كو عمباري هنا هدا صومالي أنا نجارهان هير مقدسو dadka ay soo musaafirnayaan awlaalaheena awlaalahooda oo isla wada dhashay inay macnaha kala saaraan marka taas waa ku xunahay waxa uu baaqi lahay inay macnaha dadka wada simaan oo la wada tago meel kasta ee Soomaalida ay wada joogto ee isku wada baahdaan yaa dad wada xiriir wada dhasho waaye marka waa qaldan tahay taas waxa ka dhigay inay joojiyaan